بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال أم بداوض يال كسور دوادا إذا عدا عدك جيبوتي عاوا مالين جمعة بشا أكتوبر أي تهي أفر يطبن عاوا برنامجك وحوينكي لحيو تضباطنات عاوا وحادبا أن كسي سعونينا دقيسيجي وريسيجي وإناكا كشاقينيي أما كشاقيابا GDP ونسيي أن تضبط كهرة أيان معناه نجاسيني سيدا أي وحو خالدينهين سيدا دتك وحلوجا دادحين أيو يا سيدا أي بنتو أي ملكسته وطالو وحنا أنا نتوسنا بهاي محل لوجو تلاقي جيبوتي لبدا كون يلا باتنكا محاجرة وايو وحلا موديا إنه بوب لوجو دقاقي أو أدي توله qaadasho ay joogto ayna ahayn wax maaragtay mashaariic wadanka u socda ee ay tahay ninka seetiba jeebka wuxuu ku ridan karayo ha ku rido dabadeedna meeshuu kala bixi karo kala baxo taasina waxa ay tusaysaa sida haddii toole ay u soo gabagabowday xukuumaddii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo leeyte maaragtay afartii kuwaas nooleed inay haddii toole farahoodu isgaadheen oo ninka seetiba haddii toole u doonayo inuu adduunyada kaleete wuxuu ka urursan karayay uu ka urursado orodne lagu jiro sidii wax loo sii kala urursan lahaa ee loo sii kala baxsan lahaa hadalkiise waxa uu yaalaa ummadda reer Djibouti ma sida ay u fadhiyayaan ay ganoodayaan ay arkayaan inay 4 sanadood lagu cunayo wax 20 sanadoodna aan ku bixin karin misooleyte waxa ay sugayaan inuu rasuul soo dhaadhaco rasuul soo dhacayayni inuu najirin ay tahay waxa la cunay inay tahay lafahoodii iyo lafihii ciyaalkooda in la raamsanayo oo intii ugu dambaysana la sii raamsanayo barnaamijkii run ahaantii waxaan niga tagayaa waraysiga qaybtiisa dambe qaybtiisii labaad iyo gabagabihii waxaan hadduu alla yiraahdo aan balan inigu qaadaya hadduu alla yiraahdo toddobaadka soo socda inaan annagu ku sii socon doono baaritaanada aan ugu jirno inaan dadka reer Djibouti aan soo hordhigno urta la qarinayo iyo xoolaha la isdaba marsanayo ee la doonayo ummadda reer Djibouti ama wadanka Djiboutiba in lagu dhaawaco ambooleyte lagu baabi'iyo waxana haddaba aan rajaynayna dadka reer Djibouti inay wixii maaragtay ay ku hadhay haddii toole in yar oo damiira ay ku hadhay inuu sida walaalkeen ay uga dhidhi doonaan oo ay u hadli doonaan waxba haddii toole meesha kuma hadhine ay ka dhaqaaqi doonaan inta ayna ku duldumin waayo waxa aan ku dhownahay inay Djibouti dadka reer Djibouti ay ku duldunto iyada oo hoos fadhiya oo moodaya inay had dhex fadhiyaan waxana aan uga digaynaa dhibaatada soo socota ma aha wadan nacayb waxaan uga hadlayno dhibaatooyinka wadankeena haysta laakiinse waxaan uga hadlaynaa waxa weeyeen si khatarta soo socota oon arkayno oon doonaynane in dadka reer Djibouti ay ka dhidhiyaan ayna sugin inta ay khatartaasi ay rumoobayso run ahaantiina maanta waxa annaga idil noo muuqata inaan waqti dambeete dadka reer Djibouti baraaruga aan ku wada jirno annagii aan baraarugnay laakiinse bar kaleetina ay baraarugi doonaan waqtiyo ay waqtigoodii u dhamaado
intaane caawa waxaan iga tagayaa nabadgelyo iyo nabadi kulantay waxaanan nileeyahay inayni habsaamin sheekooyinka qabiilada iyo leete uskaga dadka reer Jabuuti lagu dhex beerayo ee ay tahay inaad aragtiin waxaan xoolahan wadankiina la boobayo ambooleyte dadka shisheeye gacanta looga gelinayo hadduu alla yiraahdane arrintaas run ahaan waan ku soo noqon doonaa waxaana aan arki doontaan hadduu alla yiraahdo dhibaatooyinka kaleete dadka reer Jabuuti haystaa sidii gabadhii yarayd ee la dilay ee halkan aan niga soo sheegnay oo waliba haddana dhibaatadii ay sii socoto halkee la joogaa waa barnaamijyadeena dambe hadduu alla yiraahdo ayaan ku soo qaadan doonaa sida ay wax yihiin halkee wax joogaan toomise ma sidii ay wadanka uga sii faa'iideysanaya waxaan kaloo maqlaynaa arrimo kaleete oo na soo gaaraya waxaanan hadduu alla yiraahdo in soo hordhigi doonaa arrimuhu halka ay socdaan waxa aniga tagayaa nabadgelyo iyo nooli kulantay iyo hadduu alla yiraahdo toddobaadka soo socda haddaan ku soo yar noqdo xagga arrinta socotay JT-ga la yiraahdo ee maaragtay ay Somatek dhigsayso waxaan aragnay markaan satellite-kan ku eegnay in meesha laga dhisay ay tahay meeshan la dhigay ay tahay meel ay dhex marto oo waxaan aragnayba aqalka meesha laga dhisay dhexdiisaba waxa mara dix baa marta oo labada geer u kala saaraysa JT-ga amba maaragtay dikadan qaadaysa miyayna dhici karayn inay waqti kaseeto oo uu roobdo iyadoo adduunyadii isbedel u socdo maaragtay la leeyahay isbedel maaragtay hawo ayaa jirta oo kalimaat change ayaa jira adduunyada ka socda maanta ma laga cabsoon karayaa meesha idila la dhigayba shirkadan inay tahay meel maaragtay khatar ku ah oo maaragtay mustaqbalka ay maaragtay ay ku baaba'ay karayso shirkadaas horta laba u kala qaadayna arrinkaas meesha laga dhisay maxaa la yiraahdaa promotion centerka oo maxaa la yiraahdaa meeshan lagu promote gareynayo mashruuca dhan waa aqal meesha shirkada wakaa iyo aqalka iyo maxaa la yiraahdaa shirkadu meesha ay degan tahay sax haddaan ku horeyno promotion centerka exhibitionka loma abayeelin loma abayeelin gelgeliyo geel ma aragteen baa lagaga dhigay waxaa loo dhisay maxaa iga galay runta marka laga hadlo oo yacnihii ana maxaa la yiraahdaa wixii jiro laga hadlo bas yacnihii marka laga hadlo dhismo guri ambase aqal badhe dikadu markay agtaada marayso at least aqliga saxda wuxuu ku siinayaa war dikadii aqalka isla sin asaaskiisa صح يونا أقل كوكو دي كدي وحكسر دعي كر داد بصوفتي أقل كيبو قلي لكن أقل يدي السيماشة الجاينيس كها وحوك هاني إنه أقل كوكو دي كدي وأقل كوكو دي كدو نايس رايس هذا علي مرمها لبمها يا وحلا بديلين مرمرك هذا يروب بعد لابد يكون يلباتن كي بنجعلها ويسوق الأنبا يسوق الأنبا سيبر كاس مرمر كاس كدول سعودي أدب بيبا كوس الله كدي عشان محا وخروق ياده صدح جري ما لبجر هذا خلمي لبجر أي اللي بديل مرمر كماش محا تاكا قدرن قاب دسمات كي أودي سنتاي وابغي كل شو واحد اللي سوقي شو كاغا دراني وحش يالو دان ودا جاينيس او مانتا انيغا كشقيناي لقدا ما فهماي انو جاينيس waxa kuma baran ma garanayo kuma hadlo maxna ma joogan CCTV camera la dhigay waa Chinese English male adduunyada kale alternative ba jira oo luqad kale taad geysan waa wada Chinese wixii hada taa ka soo gudubno hawo iman shirkadda halkay degatay xal baa loo heli karaa oo waxaa jirta maxaa la yiraahdaa dix baa jirto dixdana maxaa la yiraahdaa la wiciyi waxyaalo kale la isku dayi karaa iyadoo mushkilad weyn ma jirto laakiin waxa ceeba oo wax laga yaqiiqsado laga xishooda shirkadii martida ee wax ku dhisaysay maalintu daadku soo horta cadeen ma shaqatiga jiraano ma shaqati marka roob hadduu roob imaado oo imika soo qaad 9 ku yimid 8 baa soo galay shaqada
roob xoogan baa imiday 9kii iyo barkii waa rawaxay hadda waa hooynaya shaqadii waan joojiyay way meeshii waa hal baa la waayo boon yar in la sameeyo la dul maro oo shaqaduna ay socoto maba qaateen boongaas maxaa la raahdaa 5 malyan ma hadii la isku wada geeyo boon yar oo iska yara maxaa la raahdaa macmala oo lagu meel gaaro waxa laga xishooda ah in ay soo dhigeen bartii dhanayd ee free zone-ka shirkadii dhanayd ee martida roob ayaamahan dhaweyd ay oo iyagoo daabulay dadkii remorkerinte keenan dadkii bay daabulayaan waa shirkadii baa dadkii daabulays isku socodkii ka shaqeynaysa dadkaasi ma waxay ahayn magaalada dadka degan mise waxay ahayn dadkii meesha ka shaqeynayay mayade wax nooc kasta iskugu jiraan dadku waxay iskugu jirayaan in dikadii baa marayso dadkii loo yacdi ka imiday ee Soomaaliland nooga imiday iyo dadkii reer dameer joog ahaa iyo dadkii magaalada ka imiday loo yacdi ku socday isku socodkii wadaadkii xiraya صح koona la iskuma dhaafayo saacado badan buu soconaya dadkii in lama mari kareen shirkadii martida ka shaqeynaysa waxaas inta jeer ay shirkadaasi dikada dhistay oo lacagna lagu siin oo waxna lagu siin waa farahay ka baxaysa maamul xumadu halka bay gaadhay way meesha la dhigay ma aha meel waxa kaleeto oo maaragtay aad sheegaysaa inay dhismaha idil u dhibaato lahaa maxaad ka soo qaadan kartaa aad waxa tahay nin maaragtay informatic computerka inaad maaragtay aad khibrad u leedahay dhismihii halkaa laga dhisay waxaad tidhi alaabta taal waa wada shines ma jirtaa sidaa u dhisan tahay hababka adduunyada ay u dhisan tahay ama normiyada la yidhaahdo adduunyada loo dhiso ma u dhisan tahay taa halkaa laga dhisay uma dhisno Djibouti Telecom waxaa jirtaa sida maxaa la raahdaa abitaaga normiga markaad aqal dhisaysid aad uga soo qaadanaysid normiya la raacay leedahay Djibouti Telecomna taabay leedahay lacaga fara badan baa ku baxay promotion centerka laakiin waxa qurahaate aad la yaabaysid waxa weeyaan shirkad imika waa laga tagay Katsinga maxaa la category singa xariga RJ Carosin category singa wala ma isticmaalo badiga صح hadii la isticmaalna waxa laga isticmaalaa shirkado yar yar iyo xaafadaha صح waayo xarigan wuxuu leeyahay buu leeyahay oo awood ziyaada ama leh marka laga hadlaayo hadalka iyo imika ba soo qaada marka ku hadlaysid maxaa la raahdaa IP phone kala marka ku hadlaysid IP phone ma qaatay isagu oo joogsanaya inkastoo hadhow tolaad wax ku xirxiri doontidoo deesiiro macmal iska socon laakiin categorisiiska baa normiga saxda ah ee shirkad weyn ay isticmaali karto marka category 5 baba la dhigayba meesha haba la dhiga ma xumo waa la dhigi karaa waxa weeyaan normiga jira waa in shimade cable loo sameeyo oo cable-ku hadhow tolo britol hadduu jiiro cuno ambase dib ay ku imato si dib yar looga saari karo building-giisa una wax dhibaato la geysan laakiin saacada aan kula hadlayo DDIP waxa jira wifi maahine laguma shaqeeyo wifi maahine laguma shaqeeyo sokal kuna waa bir maxaa la raahdaa xariga internetka صح aad gashanaysi male khabiiraad xabda shaqeynay male waxayna u shaqeynayeen sokaladan markii la dhigay waxa la sameeyay marmarka shimade cable-kii baa ka hooseeyay marmarkii baa lagu dul sagbadeeyay shimade cable-kii meel kaabala ay jiraan maxaa keenay marmar in guudka ama la dhigo ambooleyte waxyo hab loo dhiga ayaa jiro haddii marmarka guudka la dhigo meelo hoosta lagaga dhaadhici karo oo maaragtay kaabalada lagu samayn kara ayaa lagu hagaajin kara ayaa jira habka yacnihii waxaa ka xumaaday distribution roomka laga kala qaybinayo xarkaha way meesha uu yaallo meeshii ku habboonayd maaha xalku markaa maxay heleen hoostiina inay sameeyaan distribution room xarkaha dushii sareytan in distribution room loo sameeyo waa halkii quraatee loo sameyn lahaa maxaa la raahdaayay distribution room oo ku filan oo loo kala saari lahaa wixii CCTV-ga iyo wixii maxaa la raahdaayay fiber optic-ga iyo wixii maxaa la raahdaayay RJ Carosin taasi oo isbahayd data center ma lahayno waa data center yaro annaka ayaa sameynay markaas laakiin mashruuc dhan oo data center oo waxa jira heedba ka qayb ahaa DDIP dhismaheega
oo aad u weyn su'aal kale ayaan ku weydiinayaa meesha waxaa loogu talagalay waxaa tiri inay loo dhiso meel warshad biyaha u macaanaysa waxaad ii sheegaysaa meeshan waxay u baahan tahay kooraan badan ay u baahan tahay saad igu macnaynaysa kooraanka halkee ka keentaa onjaan baa isticmaalnaa laba onjaan baa isticmaalnaa oo kooraan yacnihii haddii la isku dayo labadan oo dee yacnihii aqli saliim u shaqaynayo kooraanka waa la iibin karaa onjaanyaal waaweyn weyn kooraanka ay samaynayaan annaka uu naga badan yahay uu naga badnaaba annaka waqtiga uu naga badnaa onjaanyadaas gas fuel mise gas fuel bay ku socdaan fuel bay ku socdaan fuel bay ku socdaan ha fuel bay ku socdaan waa generaatoro waaweyn ha oo aad awood u leh oo siin karaya imika laba shirkadood baa jirta Parlin waa sous-traitant maxaa la raadayay Soomaaliyana labadooduba gaaska kooraanka way ka iibin kartaa ayaa ku dhici kara laakiin iyaguna waxay iska siitaan kuwoogii ma jirto cid ka oranaysa kooraanka annaka ni haynaa waniga iibinayna marka ninka seetba meeshaas kooraan isu iska leeyahay ee ma jirto kooraan meeshaas ay ku shaqayso oo mashruuc baa jira shirkadaha waa mushkiladda ugu weyn bay ka mid tahay kooraanku waxay maada shirkada aad u fara badan oo danaynayay mashruuca aad iyo aad u fara badan yacnihii inta aan joogay you can imagine how many companies are saxday maxaa la rahdayay MOU memorandum of understanding aad u tira badan laakiin حبت صون نقطة تراهذا إيويكن مجرته لماذا؟ ومحيد بسببه because كوراكي بأهدو قليل كوراكي باللحدة دولار واللحدة فرنا أنت تسفي عن وقوف في السيلين هالكاس مدير بنك وقول لعبي ماشي المشروعا تذكر جيبوتي إنا ودفعنه مشروعا من جيبوتي أيا ديسيسي مسو شركته أيا لوجو تلاقي إنا ديسان جيبوتي ماشي واحد يدو أصلا يسوي إننا مال ay dadkana ay degaan ay u hesho biyihii kooraankii wixii ay siiso meeshii maaragtay lagu sheekaysanayay amba maaragtay lagu heshiinayeen ay u samayso iyadoo intaaba ahayd mise inay meesha oo dhan dhistay ahayd okay waa laba qaybood annaku DDAP facility baan u haynaa shirkadii way imatay way kan bay tiri diyaar baan hay qalabkaygii baa sitaa waxaan u diyaarinaynaa dhurkii biyihii واي ماشي الشركة أيها دقيقة هذا سفع وفخ الاستير وشركة ماشن وفخ الاستير وشركة ولا شركة كسماها وهيفي اندستريال هيفي اندستريال وشركة وين سيدا كو برها سماية صح وحيا لبضانو لغا باران دغا باجرو سيكوريتي اهان because الشركة كورانا دا استعماليان دب استعماليان شركة دايمكا ستيل ماتيريال كو كلايتي ماتيريال كا درسمها سماينيسو كلايتي وارساما شركة waxaa jira birta sameynaya shirkad qarrada sameynaysa markaas waxaa jirta in shirkadahaas waa heavy industrial oo loogu talagalay because dadkii way ka fog tahay moogtahay dhulka deegaan ahaan dhulka la dego way ka fog tahay marka dabtii marka laga hadlo mashruuc loo aayilaha hadii la u maarin la sidii loogu talagalay waxa dhacday maamul xumo mushkiladda markay shirkadu imato waxay la soo shirkad tagi jirtay kooraankay ka wareysan jirtay shirkada imka Turkiya oo sameeynayay materialka aqlada lagu dhiso frayeelka oo kale iyo wixii bir oo xadiid oo dhan shirkadaas waxay ku doodaysay kooraanka waxyaalaha ay ka cabanaysay ay ka doodaysay kooraanka kamid ahaa kooraanku 60 faran aad u qaali ah markay ku qeybaysay Izmir oo deganaayeen waxay ahayd sentiment noqonays $1 bay ka yaray laakiin annaku waxay ahayd lacag aad u fara badan 60 amba 40 badhe soo dhaadhacba 40 bay mi awoodi karin shirkadu way shirkadu intaas kadima waxayna sameynayso biro oo dab baa laga dhalinayaa marka aad bay qaali u tahay waxay ka cabanayeen oo kale dhulkii qiimihiisa dhulka oo metra kaariga $7 kira weyn lama iibsanayaa dhulka lama iibsanayo dhulku waa kiro shirkadu way kiraysanaysaa laakiin hay xisaabi bal shirkada biraha sameynaysa dhul intii leeg baa u baahan tahay 3 hektaar 3 hektaar على متر كاري وقول لفوتو ضبا قياس صديقه انت نقاليس يا marka shirkada baa imata Sacuudiya oo meesha xoolaha lagu xanaaneeyo xoolaha laga dhoofiyo
waxaan ogahay imika Abu Yasir way xidhantay jaalay meeshii laga dhoofina contract inuu dhamaado malayn shirkadaas dhulkii ka cabanaysa qiimaha dhulka Sacuudiga bay ku leedahay annaka waxa $1 wax ka yar sidee bay ku suura galaysaa marka dhul inta la qaatayna lacag inta la memorandum of understanding bas xaxday way ka baxday ma soo noqdaan markaas haddii aan waxba laga bedelin siyaasadda maxaa la yiraahdaa lagu maamulayo lagu horumarinayo parkigaas waxaan aaminsanahay 5 sano sheegaysaa 40 sano soo socda ma hirgalay mashruuc run buu baahan yahay talabaad mashruucu ma aha mashruuc malaawala mashruucu waa mashruuc run u baahan karti u baahan run buu u baahan yahay markaad leedahay run buu u baahan yahay wax kasta oo madmadoweyna laga fogeeyo mashruuca qandaraaska in hebel soo siiyo ma taas ma shirkado reer Djibouti ayaa qandaraas meesha ku qaadanaya way jiraan waayo waa meel dhan oo qandaraasaha jira oo baabuur la kireeyaa jiro oo dhul la dhisayo dikada la dhisayo kama faramarna qandaraasadii way ku jiraan ma ogtahay laakiin run buu u baahan yahay dans le sens aan oranayno mashruucu inuu ahaada isla xisaabtan dhaba inay jirto director general in la xisaabiyo directorada waxay hayaan la xisaabiyo halkay lacagtu martay la ogaado faraku hayn buu u baahan yahay maaha lacag meesha ku shub oo hay inuna caymada ma noqonayso markaas isla xisaabtan baan jirin way haddii aan isla xisaabka aan ku soconno waxa jiray nin Shiina ah ayaa meesha madax ka ahaa waxa ku hooseeyay dad reer Djibouti ayaa ku hooseeyay waxa tiri meeshii maanta way joogtaa shirkadii maanta way joogtaa dadkii reer Djibouti ee meesha ka shaqeynayay meeshii lama joogo xaguu maray dadkii mas'uuliyiinta ka ahaa ee shirkadan ku xigay ninkaas hadduu ninkii meesha ka tagay oo meesha ay joogsatay dadkii hawsha sii wadayay xagay mareen xaafadooday ku noqdeen way wada fadhiyaan xaafadaha wada fadhiyaan maca deeje kii ku xigay gebi waayo ma hadli karaan waxayna u hadli karin waas iyaka dhan amarun baa la soo siin jiray shalay toonay amarkaan bay fulinayeen bas خلاص wax kale oo ay qaban karayeen ambasay oran karaan iska day ma awoodi karaan inay yiraahdaan salarkayga away iyaga salarkoodi ani iska ma dhaafiyo dadka kale ay la midka iyagu naftoodaba ma oran karaan way waxbay naawilayaan dadka kaleete ee maaragtay shaqaalihii ma sameeyeen markii ay arkeen inay bishaarad waxaad iga tiri waxay joogsatay bishaaradii dadkan shaqadii waxay joogsatay bishii March 2022 ay joogsatay waxa maanta aan xisaabin karnaa March 3 bay ahayd maanta waxaan joognaa bishii shaqada joogsatay maalinka laakiin mishaarku wuxuu joogsaday February okay way ka sii horeysay bil ka sii horeysay ayay ahayd okay February ila 7 bilood maanta weeyaan waxa dadkaasi ay yihiin bila bishaaro maxaa la sameeyay 7 bilood dadkaasi maxay sameeyeen waxa lagu qiyaasi karaa dadka inay 150 qof ay yihiin 150 waa dad badan maxaa la sameeyay wax isku day bay sameeyeen dhalinyartu anigoo waan joogay waqtigii isku daygaan sameeynay laakiin isku day waa la siyaasaday anaku cidna ma cambaaraynin aniga kula hadlaya joogay waqtigaas waxaan sameynay maxaa la raahdaa delegay waxaan niri warsan xal ma mustaqbal ma arkayno صح ninka waxa jooga garanayn waxa soo socda ma garto rag waaweyn baan nahay oo xaasas leh carruur leh barkeen xaalada iska adag iskaga jireen oo tashanay qaar annaka naga mid ah inta naga dhaxkaceen bay tageen oo tageen dadkii mas'uuliyiinta naga sareeyay u sheegeen hebel baa meeshii hawl ka wada oo wax diidaya dan oo aytamaya wala waxyaalaha oran naga siiyay naga sheegay kadibna sheekadii cirka isku shareertay Djibouti waa taqaanaayo ninkii hadlada xalkiisu halku ku dambeey waa taqaanaa dhalinyartii way cabsoodeen waa la cabsooday arrinkiina sidii baaba lagu buriyayba oo waxa la qabsaday laba qof oo naga mid ahayd annaka waqtigaas oo la yiri ka iyo kaaba ani caayay
oo maamulkayga wax ka sheegay sidaan u wax u wado ka soo horjeestay yiraahdeen qolada sidaan nama samayso sidii baa lagu buriyay kadib waa waqtigii la shaqaynayay oo shaqada ay socotay kadib waayo marxaladihii ay shirkadu soo martay saaleerkii joogtada ahaabaa dib u dhacay 10 cish waayo bisha waxaan qaadan jirnay 10-keega 15-keega awal 24-keega 25-keega qaadan jirnay annagu markaa waxa laga doodayay waxay ahayd war bal 10-keega uu yiri dhaafi 15-keega 17-keega naga daayay taa kaliyateed waqtiga waxa laga guganay nagu yacni saa loo sameeyay kadib waxa ay matay bildaaf bildaafkii haddana waxaaba imatayba inaaba la tuujiyo markaas waad garan karaysaa xaaladda Djibouti maanta ka taagan qofku hadduu xaqiisa u hadlo lillahi u hadlo isagoona aflagaadin qofba raalli lagama aha صح waxaa raalli ka ahayn ay dhibaysaaba ciddii waxaan haysatay ciddii ummadan xoolahoogii haysatay ee xaqoogii haysatay oo dhididkoogii haystay mar baan isniri war maaha dhididkeeni waxaan cunaynay waa dhiiggeeni dhidid maatan waa dhiiggeeni waxaan cunaynaa moogtahay marka taasi ayaa keenaysa qofkii ma hadli karo waayo gabood nagaad waxay u dhowdahay dameersho midda kale taa kuu sheegaya xamuud jaamaco marka qof hadday isku soo baxaan intaba lagu soo gaarin ambasadad ay ku aragba deega waxa lagu yar weecinayaa meesha nagaad ahayd meesha mushkilad weyn baa ka taalay moogtahay marka dhalinyartu waa wada cabsoonay cidi kuma dhici karin ilaa imika laguma dhici karo oo dhalinyarta hadday is abaabulaan ay yiraahdaan qaar baa warkii qaadacay oo si khashifayaba wixii iyo halkii iyo goobtii ku dhici lahayd markaas mushkiladda weeyaan waxay maxal raadayay u hadli kari waayeen dhalinyartii marka imika way naga badatay waayo 7 socdaa waxaan ku sii aamusana ma yeelo runta marka ka hadlaya anigu shakhsiyan waxaan ku sii aamuso ma yeelaba 7 socdaa de 7 bilood haddaan iska soo noolaaday inta damana waa noolaan doonaa صح waxa aan maqal ahaan ugu soo gaaray in hadalka aad ka dhawaajisay dad baa laga dhex kacsadayna waxbuu ku darayaa arrintaas waxaa la hadal hayaa in dadka mas'uuliyiinta meesha ka ahaa ay ahaayeen dad ay isku dhawaayeen xukuumadda maanta ambo maaragtay ay leeyihiin khad qabiil ahaan khad maaragtay reer ahaan khad adu ay isku dhawaayeen ayaa maaragtay na soo gaadhay arrintaasi ma jirto dadka meesha mas'uuliyiinta ka ahaa leeyahay inta badan haddii la odhanayinba 100% waxay ahaayeen dad maaragtay ku xidhan si toos ah maaragtay madaxda warun waa ciyalkay dhaleen bas anoo ku kala qalqaadin waa ciyalkay dhaleen waa kuway dhaleen waaya 100% walaa taama la odhan karaa haddaba inay arrintan dadka kala jijibista inay ay ka madax tahay wax ma ku sheegay mechanismiga la dhigay ma ku sheegay way su'aasha anoo ka jawaabay mechanism 80% shaqaalaha meesha ka shaqeeya 9 iyo 7 shaqaalaha meesha ka shaqeeya waxay ahaayeen shaqaale ku imiday maxaa la raahdaa qab maxaa la raahdaa adeernimo iyo sida ay u socotay صح وعرفتها كذب وابا 3% ayaa ku imatay qab xalaal ah kadib dadkan imiday waxay ahaayeen dadkii ugu qaniisanaa dadkoodii waxa loo halin ay u hali karin dadka ma ku sheegay anu 80% dadkan aragsan 70% dadkan kaadaradan ka hadlaya ma security-ga waxa kama hadlayo dadka masaakiinta waaye dadka masaakiinta kama hadlayo 80% dadkaasi dad wax haysta bay ahaayeen dadkooga ay wax haystaan ma sabahan iyo maxaa la yiraahdaa si kalaba dan maxaa la helay haday dadkaasi halli waayeen way danahooga fiirsadaan way shib yiraahdaan wayba oranayaan waayo ninka sabab qofkiisa la garanayaa in aniga adeerkay sumcadiisa ma dilay waan dhowrayaa hade marka runta laga hadlo waan dhowrayaa moogtahay in qandaraaska loo goyn adeero moogtahay xaafadii waa bariisku khal bugali moogtahay anoo taa dhowraya ma hadli karo
adeero ma dib ugu noqono mutation adeer yar doondoon meel yar oo kale tiigay ihabeed haddii kale tahay risqa wada goyn taasina nooma wada fiicnee ma ogtahay marka qaab caynkaas weeye mekanismiga meesha ka jira waa taasi dan waxaa dhacay in inteera hadhayday masaakiintu صح xarig ba ka cabsoonayaan waa la xidhay shaqo kale ma heli karaan waxaan xaaladda wada arkaysaa ma marka taasaa keentay inaaba la hadli waayeen iminka waxaan kusoo qaadan qoladii ii sheeg maxaa la dhahdaay maxaa la dhahdaay DPLS صح maxay la hadlaan maxay la cabaadaan واسكو ذا ليفل كلاس سوشيال بكسو ودا كعان صح بالبريك ودي هذا قدراسك لغو غوينه ما باكينين ما موغتahay يا بريسكي حافظه ولا كرين دوناو ماشا واسكو ذا ميد صح marka mechanism cayn kana jira kan uu isku xiran yahay waxaduu ka yar hadlo odagiina waa ku kacaysa baashu laakiin qoladan kaleete waa isku wada ka marka waxay dhowrtaanba ma yaalo waa in la iswada qooyo marka mechanismiga ba keenaya way ماشي وحرنت مانتا waxa ka dhaqdhaqaaqaya shirkadaas oo iyana ku nool balamo iyo maaragtay rajo ay sugayso oo lacagteeda isticmaalaysa lacagta meesha loo soo amaahday haddii aan ka tagno 4 milyaar ee Shiinaha lagula heshiiyey wax ka timiday iyo wax kale maanta ahaan ma sheegi karno adna nooma maaragtay noomaad sharxin laakiin se waxa jirta lacag uu bixiyay banka Afrikada Africa's Bank la yiraahdo kaasoo ahaa 120 milyan oo dollar oo loogu talagalay bay ahayd in lagu dhiso jetega in lagu dhiso maaragtay shirkad maaragtay warshadan biyaha safaynaysa iyo exposition in lagu dhiso loogu talagalay ayahay ma la oran karaa maanta 120kii waa laga soo baxay milyan waa laga soo baxayo 120 milyan waxa inta gashay meesha iyo inta hareer martayba way select way hadda inta hareer martay ay ka badnay way marka waxay ka dhigan tahay adee toole meesha lacag kale oo ka dhaxgalay 120 milyan meel ay gashay sida uma ka teeri aniguna halka kama fadhiyeen way hareer martay shaqaaluhu kama cadilaadeen way marka waxay ka dhigan tahay meeshaasi sida ay u dhaqaaqdo amba loo toosiyo oo kaleete waa in wax kale loo helo way loo sahan tagaa imika mar labaad iyo mowduuc kala in wixii hore wax lagu soo qaaday in meesha kama dhicin imika wayna khitad kaleete iyo moogtahay wax kale la doondoono moogtahay laakiin intii horeeyte ilaahay nabar gardara nooga wada dhigo dadka reer Djibouti oo dhan way haddii aan ku socono dadkii way fadhiyaan meeshii way xidhantay maanta dadkaasi haddii aan odhan karno DDP xaggee ku xidhnayd markii hawshan maaragtay la sameeyay ma two skates kaga joogtay ayay ahayd miso meel bay ku xidhan tahay maxamed jaamac saa og tahay Great Horn waxay leedahay faracyo badan bay leedahay sax waxay leedahay DDIP DPCS DPCR ورشي كلايته جيبوتي شيبين كامباني وحيا شركات بدن باي كفر عما جريتون انا كدي دي بي اهانا كواسا ku xidhanaho waxa taasi ku xaqiijinaysa salary bishii koobaad ama bishii labaad aad khaldamay Greathorn baa bixisay oo aniga bingigay markuu message soo diraayo Greathorn baa samaysay virement oo aragtamaha oo noo shubtay anaka lacagta marka DDIP 100% waxay hoos dhigtaa Greathorn oo chef qurato bilaa inagu lacagtan aad leedihiin ee 7 bilooda waayo waxaad seexdeen diinin eriyin waxaad ka mid tihiin ila maantada waxa laga mid yahay in shirkadii aad ka mid tihiin ma haysatiin wax ninagu eriyay oo warqad cadaynaysa inana eriyay waxaan ku fadhinaba ila saacada bishii lixaad baa la geeyay maxaa la raahdaa shamash technique oona yiri 6 bilood oo shamash technique aad ku jirtiin
maxay sheekaankaas wax officialana oo ku oran karo waa taa warqadda baa jirtana ma jirtaba bas email kana anaka dhooma dirinay dad mas'uulow ma ka maqalnay way waxa ay ka dhigan tahay markaas dadkaasi bishaaradoodaas waxa ay ku leeyihiin waa Greythorn iyo Greythorn waa kulana ha of course ma jirta haddaba dacwad dad kamid ah hadda intooda badan ay hadlin dad kamid ah oo dhigay dacwad maxkamadaha dhigay Djibouti ma jirta waa run wax maxkamada lama dhigin laakiin dadkiiba horta maxkamad beenta la gaarinba cidaad maxkamadaynayso waayo su'aal imika anu haddaan adiga dacwad ka ahay adigu waan ku maxkamadaynaya Soomaa sax waxaan oranayaa halay qabto oo maxkamad baan dhigan plan oo markaasaan daar laakiin adigu marka maxkamadii tahay adigu marka tahay maamulahaygii adigu marka tahay wax kastaba adiga ku soo dacwada markaa way waa arin la isweydiin karo laakiinse Djibouti waxay tiraahdaa waxaan nahay wadan maxkamada ay jirto hab loo kala socday ay jiraan madaxweyne Ismaaciil Margeele in badan wuxuu ku celceshaa inay wixii dhibaato ay jirto maxkamado madax bannaan ay Djibouti jiraan dadka reer Djibouti ma ku eegeen dadka reer Djibouti way ku eegeen warqadeedu waxay horta alaaba maxal raahdaay inspection de travail hadday taasi run tahay waxaan leenahay madaxweyne waa saxsan tahay 7 bilood iyo ziyada leeyahay indemnity anoo booqinba iska kaysi aniga dhalinyarta kale naalamidka waa iska sax marka waa ku qirinaa taana annaka ku confirmeenayno adduunyada oo nu sheegaynaa saanimika loo cabanayno yaan leenahay taasina way jirtaa laakiin maxamuud jaamaco ma jirto walaal ma jirto xaq haduu jiro wixii kaftana waa kaftan laakiin hadday wax jiraan oo xaqiiqo ay tahay nin kastaba waa xaad arkaysaa wallahi baan ku sheegi maaye asxaabtii xiriir baan leenahay oo isla hadalnaa rag qaarkood baan ka joojiyay inaan xiriiriyo oon la hadlo waayo mar alle markaan la hadlo murugo ciil iyo yacnihii quus ay la gaarsiiyey dhalinyarta dhalinyarta waa dhalinyartii wax baratay waxaan fahamsanay arkaysaa ma ayaan darteed aan uga gaabiyey on aan la hadal waayo wixii meeshan markii aan soo galaynay runtaan ka hadlo maxaa la rahdaay aan shaqada soo galaynay aan biloobaynay miidiyaga propagandada iyo waxa dhacay waxaan islahayn dalkana wax baad u qabanaysiin dalkana abaal baad dhaniga hayn doonaa xaqiiqdii maxaa la kulannay meeshii markaad ka maqan tahay waxaad moodaysaa wax cajiib bartamaha markaan gudaha u soo galnay waxaan aragnay waa wax wixii ka duwan markaas dalku dadlaan maaha dalku mala'a maxaa la rahdaay dhalinyar wax baratay waxaan aaminsanahay 9% dhalinyarta reer Djibouti inay tahay dhalinyartii ugu wanaagsanayd waddankan heli lahaa ma jiro dhalinyar ka wanaagsan waddankan heli lahaa gabar iyo wiilba laakiin waxaa helay maamul ki ugu xumaa waddanku heli lahaa maanu helin mas'uul waxaa jirta wasiirka maaliyadda 2014 jaamacadda Djibouti waan dhiganay wuxuu noogu yimid uu 3 sano iga yacnihii lahaa vision 2035 DDD damba ku jirtay uu kaga sheekay jaamacadda dhexdeeda aanu dhiganay ilaa saacada kula hadlayno ka sheekeynaya oo Twitter-ku ku soo qora ma xishoonaay waa 10 sano amba 8 sano kadib in la waayo mashruuc hirgalay eeloliyan ka taqaana oo investigation ku sameeyeen biyihii baad aragteen oo investigation ku sameeyeen waxaasoo dhan waxaaba ka mid aha kaagamana jawaabi karo kuma dhici karo inuu ka jawaabo waxaasoo dhan 8 sano waa horumar la qaban karo waa wax la taaban karo la samayn karo laakiin hadday ka daaca tahay ay ka run sheeg tahay ay ka dadaal tahay haba yaraatee maanta waxaasoo dhan mid dhacday wax la iska waraysanaa wax la iska weydiinaya nin kastaba meeshaaba ku engageysanaya uu meesha arbo engageinaya markaas wixii uu ka sheekeynayay 8 sano ka hor ayuu maanta ka sheekeynaya uu leeyahay waxbaan qabanay wax alliyo wax la qabtay wala tirin karaa markaas runta la isku sheego oo yani dalkana sidana loo dhaamo way waxan ma aha qof iyo shakhsi ma wax maanta ay taagantahay war waa wadanna waa aayadan boqolka sano soo socda dalka ku mari lahaaween ma aha 4 iyo 5 sano wax laga sheekeena boqolka sano soo socda wadanka ku mari lahaa maanta
waxaan example yar ku soo qaadanaya dhalinyartu markaan ku leeyahay waa dhalinyartu ugu wanaagsan ee waddankan heli kari lahaa bay haysataa waxaan arkay yacnihii meel ka mida Djibouti oo Sheekh Usmaan wax ka yar 20 cisho in lagu dhiso oo low cost lagu dhisay quruxdeedana aad yaabaysi oo maxaa la raahdaayay gaardekoodku ay dhiseen أنا مرة بين السيجال أو جوديه بس لكن example هان وحن كقادنا يا كعكس وقادنا يا ماشى لبعض عشو جوديه يكون دمعته شقة إنت عليك دي كدي دي بدي جوديه وحكس أسكر بالغو شقي then وحي behind the scene كما هلا يعني behind the scene بس example كوا حوين وضن كان إنه هيستوي حي لوب هنا أنا لوب هنا العجب بدن أو إنت عليك دي كده لو وضع وحين كرو لقبان كر الشقة بدن لكن عدود دي بو هيستوي وضن كي energy دي بو هيا وضن كي odayaasha waaweyn meesha iska fadhiyana waxay rabaan inay ku gaaraan wadkii sida inay u xisabtay doonaan xoog ayaad u maadsan tahay waxaan ku dhownahay gabagabihii barnaamijkeena ayaan soo galay Abubakar waxa aad ka soo hadashay meeshaasi inay run ahaantii marka la oran karayo taswiirteeda dibad way qurux badnayd run ahaantiise waxay u eg tahay indhasarcaad oo kaleete ayay u eg tahay weline waxaad tiri wayna sii socotaa propagandadii lagu maaragtay lagu xayeysiinayay wali way sii socotaa xagii kaleetane dad reer Djibouti ah ayaa ku dhibaatoonaya maanta adiga haddaba dad fursad u helaysid inaad dadka maaragtay mas'uuliyiinta waddanka inaad la hadli kartid waayo maanta amba hal la doono amba hal la diiday iyaga ayaa maanta mas'uuliyadii ay haysataa waddanka ayaa fadhiya iyaga ayaan haysataa dadka reer Djibouti haddaba adaad adigu kamid ah dadkaas reer Djibouti dhibaatadana run ahaantii ay ku haysato adiga ku dhaada maxaad ka oran lahayd haddaba mashruucaas iyo leete ragga mas'uuliyiinta ah maanta maxaad ka oran lahayd waa maasatay maxamed jaamac ana fursadda ka faa'iideysanaya una nasteexaynaya dadka mas'uuliyiinta maanta waddanka jooga kooga yar iyo kooga weynba mas'uuliyadu darajo kala leedahay laakiin waxaan si guud ahaaneed ugu sheegayaa war ilaahina ka baqa maalin maanta aan ahayn ayaad ilaahay la kulmi doontiin ilaahay yaboohidistiisuna waa dhab waana la kulmaysaan waana lagu weydiin ciddii aad mas'uulka ka ahayd iyo wixii lagu dhiibay hantidan haddaad isku koobtidood cuntid oo si xaaraanana aad u cuntid ilaahay waa kula xisaabtamay aniga maanta waa badiga awood weyn tahay waxaad leedahay waxba ma qaadi karo laakiin maalin ayna awlaadaada iyo maalkaaguba ay aan ku anfacayn ayaad hortagi doontaa raxmaankii waana lagu weydiin masiir ummadeed baad gacanta maanta ku haysaa berri toolase laakiin ilaahay baad hor joogsan masiirka ummadda ee lagu dhiibay ilaahay kugu sharfay ha inkirin nimcooyinka ilaahay ku siiya adiga waxaan kuugu nasteexaynayaa nin kasta oo mas'uulaba meesha aad joogtid iyo mas'uuliyadda aad haysid ha ku takrifalin una qabo sidii ugu wanaagsanayd uu ilaahay kugu ogaa waxaan si gaara ula hadlayaa Abubakar Xadi oo ah madaxa maxaa la raahdaa Great Holland waxaan ugu nasteexaynayaa inuu u fiirsado shaqaalaha dulman ay dulmeen dad uu isagu keenay meesha uu isagna qaybkiisa dulumka ku dhacay waayo madax meel ka sareyso la taaban kara ma jirto isaga ayaa keenay dadkan wax dulmay isagna wax buu ku ogyahay in dhalinyar waqtigii mars aroos galay ilaa maanta awlaad ay u imatay oo waxba aanan haysan ay kugu hoos dulmanaadaan waa wax ilaahay laga baqo ilaahaga u soo laaban ummadan xaqooga sii adiguna maalinka aad ilaahay la hortagaysid culaysa ka yaraado waba ku saaran yahay culaysee ha ka yaraado adiguna inta kaleetana waxaan leeyahay iska sabra sidan waxba ma ahaan doonaan waxaan u sheegayaa ummadda reer Djibouti guud ahaan sabra waxa iman doona maalin aad helaysaan wixii aad mudnaydeen xaqiinni aad helaysaan cid kaste oo daalimana maalin baa jirta uu ka qoomameyn doono ficiladii uu ku soo dhaqmay waxaan leeyahay dhammaan asxaabtaydii iyo dadka kale walaalaha ee ku jira dulumka caynkana iska sabra xaqiinnana waa helaysaan insha allah
waayahay xoog ayaad u mahadsan tahay abubakar dadka reer jabuuti waxaan u malaynayaa inay waqti badan ay samreen ayna samrayaan weli hadda laakiinse waxaa la yidhaahdaa ilaahay dhaho har ha ii seexan dadka reer jabuuti ma u malaysaa abubakarow ada intay ugu dambaysay anoo kule ma u malaysaa inay harkii seexdeen maxaase ku habboon way seexdeen fariin baan u dirayaaba dadka reer jabuuti yacnihii hurdada waa marun baa laga kaca oo waqti bay iska leedahay laakiin in ummaddan ay yacnihii sidaa u dullaysanaato yacnihii qur-aanku noo sheegay haddaanad ininku nafihiina bedelin ninima bedelayo haddaanan annaku isbedelin qaabkaan u fikirayno iyo qaabka maanta aan u noolahay haddaanan wax ka bedelin samada intana nooga yimaado waxba nooma hirgelayaan laakiin hurdada ka kaca nin kastowba waad noolaanaysaa noloshu ilaahay kugu talagalayna waad ku noolaan amba ha kuu sannaato amba ha kuu xumaato waa qadar alle ha isdiibin waxaad tahay qofka ugu wanaagsan aad ahaan kartay dadaal kac xaqaagana u kac doono wixii aad maxaa la yidhahdaaye aad mudnayd lagaa qaatay waxyaalaha yacni lagaa qaatay kama wado oo keliya haatee mishaar nadaafad baa u baahan tahay tacliim baa u baahan tahay horumar baa u baahan tahay nolol baa u baahan tahay waa u qalantaadba taasi waad doonaysaa waa u qalantaa inaad u noolaatid sida awlaadoodu u nooshahay haddiise aad isdhiibtaan waxaa imanaya in ay kuwa ay dhaleen ay meesha qabsadaan ku maamulaan adiguna diifta iyo dhibaatada iyo silaca aad ku jirtid marka waxaan ugu nasteexaynaa ummadda reer jabuuti inay kacaan ay meesha ka dhaqaaqaan ay doontaan xaqoodii way xoog ayaad u mahadsan tahay abubakar intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigii aan wax kaga ogaanaynay d d p arrimaheedu halka ay marayaan sida ay imika wax yihiin sidii ay ku bilaabmeen iyadoo oo run ahaantii aad noo lafagurtay sidii ay markii horeeta ay ahaan jirtay d d p ay ahayd iyo sida maanta ay tahay ee hawshii ay joogsatay iyo wixii loogu talagalay maantane halka ay joogto xoog ayaad u mahadsan tahay mar labaad waxaan kaaga mahad celinaynaa sida aad uga soo jawaabtay maaragtay macsuunkayga si aad uga soo jawaabtay xoogne waan kugu mahadinaynaa sidaas waad mahadsantahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay adaa mudan